kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijka falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa ugu waaweyn Kim Jong Un oo ka soo dhex muuqday dalkiisa kadib markii la isla dhex marayay gariya nolol halka uu ku dameeyay qodobo warbixin ayaa idinka haya daawasha qiimaha leh dalalka Hindiya iyo Pakistan ayaa lagu eedeeyay in ay isku qalabeenayaan hubkii ugu badnaa ee nuclear ah iyo agabka laga dhaliyo hubka nuclearka iyadoo la sheegay in shirkadaha waaweyn ay u shaqo tageen dalalkaasi ay gaarsiinayaan hub nuclear iyo maadooyin cusub mid ku taagii dalalka isku tagay Imaaraadka Carabta iyo dalka Turkiga wararkii ugu dambeeyay ayaan yahay iyadoo xaalada ka soo kordheen hubkii dalka Ruushka uu siiyay dalka Suuriya ee ahaa in lagu liishaamo gantaalaha Yuhuuddu soo rido oo dhici waayay iyo Suuriya oo walaac ka muujisay hubkaasi inuu yahay mid jiray in kale hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxa ay sheegtay in ay baaritaan kasta oo Shiinaha ka dhan ah ay qayb ka noqon doonto iyadoo ku baaqday in baaritaan kasta uu noqdo mid salmi ah isla markaana cilmiyeysan waa qodobadaas iyo kuwa kale waa labadii bishii May waa 2020 waa mar kale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda waa maalinimo Sabti ah waa wararkii ugu dambeeyay warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda daawadayaasha qiimaha leh ku bilaabasta markaan aan ugu horeysay aqalka cad ee Mareykanka ayaa diiday ama is hortaagay in la wareysto ama uu makhraati kaco dhakhtarka arrimaha dhinaca xanuunada faafa u sareeya dalka Mareykanka isla markaana ninka hogaaminaya ka hortagga xanuunka faafaha daran ee sida weyn Mareykanka u halakeen Dr. Anthony Fauci ayaa waxaa looga yeeray aqalka House-ka dalka Mareykanka Congress waxaana la doonayay in su'aalo laga weydiiyo jawaabta ay xukuumadda Donald Trump bixisay in ay tahay mid ku habboon iyo sidoo kale sida loo maamulay howlgalka ka dhanka xanuunka faafaha daran guddiga dhinaca arrimaha u qaabilsan arrimaha la socodka waxyaalaha waaweyn ee dhaqaalaha iyo howlgallada lagu wajaho masiibooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka ka dhacay aqalka Congress ayaa warqad ay u direen Dr. Anthony Fauci waxay ka dalbadeen inuu toddobaadka dambe uu is hor keeno guddigaasi gaar ahaan kuwa qaabilsan arrimaha shaqaalaha iyo caafimaadka iyo ka hortagga waxyaalaha waaweyn ee wadanka ka dilaaca waxaana arrin war qoraal ay soo saaray afayeenka ku-xigeenka afayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka Chudir uu sheegay in arrintaasi ay noqotay mid lagu degdegayo isagoo sheegay in ay u muuqato in arrintaasi aysan hadda habboonayn maadaama uu yiri Dr. Fauci waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn oo la tacaalaya ama uu howlgalaya marka ay noqoto xanuunka faafaya waxaa maamulka Trump uu dagaal kula jira xanuunkan aad ogtiin iyo cadowgana la arkayn sidaa daraadeed mar kale nooga dhiga ayuu yiri balanta ayuu ku yiri warqad loo diray guddigaasi oo uu sheegay in Dr. Fauci uusan diyaar u ahayn arrinta inuu ka qayb galo Dr. Anthony Fauci maadaama uu hoos tago aqalka ama golaha laanta fulinta dalka Mareykanka madaxweynaha iyo maamulkaba way u diidi karaan inuu makhraati kac ka hor sameeyo aqalka golaha baarlamaanka ama golaha Congress-ka dalka Mareykanka maalmihii ugu dambeeyay oo dhan waxaa jiray walaac xooggan oo laga qabo habsami u socodka hawsha la dagaalanka faafaha daran iyo xakameyntiisa iyadoo ay jiraan hadallo kala duwan oo ka soo baxaya saynisahanada iyo madaxweyne Trump oo mararka qaarkood ku kala duwan wararka qaarkood halka nagala socotaan daawada wararka warbixinaha diblomaasiyadda inta isla Mareykanka ka bixina xanuunka coronavirus-ka ee halkaasi halakeenaya dalka Mareykanka ayaa wali uu dadku ku sii badanaya waxaana haatan in ku dhow 65,000 ayay tiradu kor u dhaaftay dalka Mareykanka iyadoo oo ku dhawaad 1.1 milyan dad ah ay xanuunsanayaan gobollo kamid ah dalka Mareykanka ayaa dib loo dhigay badankooda dib u furistood waxaana kamid ah gobolka Ohio ee Soomaalidu degan tahay iyadoo goor sii horeysay uu gudoomiyaha gobolkaasi Mike Dewin uu ku dhawaaqay in arrintaas dib looga tashan doono ilaa 4 toddobaad dambe war qoraal ah goorta ka soo baxay waaxda caafimaadka ee gobolka Ohio ayaa lagu sheegay in qorshaha loo yaqaano joogitaanka guriga la sii jiri doono ilaa 29 bishan May oo ay sheegeen in xaaladdu ay u muuqato mid soo darsanaysa waxaa la sheegay in xanuunku aad u soo ridinayo dadka Soomaalida ah ee gobolka ku dhaqan iyadoo oo la sheegay in haatan ay u muuqato in soo riditaanka xanuunku uu sii badanayo ku dhawaad 19,000 ayaa gobolka Ohio kaliya oo xanuunku dadka soo ritay ay gaarayaan kun qof in ka badanna waa u geeriyoodeen gobolka Mike Dewin ayaa sheegay in ganacsiyada qaarkood si la ogol yahay gaar ahaan ganacsiyada dukaamada iyo kuwa markaasi wax iibka badqabka ah waxaase uu sheegay in iskuulada arrimaha waaweyn goobaha cibaadada dad joogista guryaha goobaha lagu ciyaaro iyo dhammaan sadexgalada oo dhan ay sii jiri doonto xayiraadoodu tan iyo bishan dhamaadkeeda ayaa lagu yiri gobollo kale oo kamid ah gobollada Mareykanka ayaa iyaguna ka gabangaabsaday isla markaana dib uga gurtay goor hore oo qorsheynayeen in bishan kowdeeda maalintii shalay Jimcaha ahayd in dadka wada laga qaado daawadayaal dalalka Pakistan iyo Hindiya ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay gurubsanayaan hubka qalabka lagu bacaramiyo iyo waliba qalabka tiknoolajiyada ee kor u sii qaadaya awoodooda dhinaca gaashaandhigga gaar ahaan hubka nuclearka
hay'ad iyo maxad daraasaad ah oo dalka Mareykanka laga leeyahay oo isagu ka hadla ama u kuurgala hubka iyo isbaacsiga dhinaca hubka ee caalamka gaar ahaan kan nuclearka wax kumaada oo leeyahay Center for Advanced Defense Studies oo loo soo gabiyo C4IRS ayaa war ay soo saareen murtiyada ay soo saareen waxay ku sheegeen in walaac weyn uu ka soo kordhay Koonfur Bari Asia. Hindiya iyo Pakistan waxay ka faa'iideysanayaan ayaa la yiri dhibaatooyinka dhinaca jeerdhaafka ah ee kolka ay timaado wax isdhaafsiga hubka waxayna labadan dal ay u muuqdaan kuwo si xoogan u gurubsanaya isla markaana u urursanaya hubkii iyo saanadii ugu badneed ee lagu bacrimi karayay hubka wax sida weyn wax u gumaada ayaa lagu yiri warka qoraalka ay soo saartay C4IRS waxa uu hadlay gudoomiyahooda Jack Morgan oo sheegay in adduunka ay khatar aad u weyn ku soo socoto ayadoo uu sheegay in xanuunada dabiiciga ay jiraan haddana dalalka aysan haba yaraatee wax cabateed u haynin inay dhibaan iibsashada hubka iyo gaashaandhigga kor u qaadistooda. Morgan waxa uu sheegay in aysan haba yaraatee aysan u arkin arintaasi mid aan ahayn oo kaliya khatar la gelinayo adduunka wax kale oo aan u aragnaa ma jirta bay yiraahdeen aan ka ahayn in nafaha aadanaha aakhirka lagu ciyaari doono. Waxa uu sheegay in 222 shirkadood ay ka faa'iideysanayaan dalka Hindiya kuwaasoo hub u gurbinaya oo ka qaarkoodna kay tirsan yihiin dalalka Japan iyo dalka leeyahay Mareykanka sida daraadeedna dalal kale oo ka mid yahay Japan iyo Shiinaha ayaa hub saas oo kale ka iibinaya ayaa leeyahay. Waxa kale oo la sheegay in qarabkan iyo hubkan inta badan Hindiya ay gadanayso iyo shixnadahan ay ka dusaan marinada Hong Kong iyo Singapore iyo isku tag Imaaraadka Carabta waa sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay Pakistan waxa ay leedahay in ay qorshaha loo yaqaano ilaalinta iyo xakamaynta hubka laakiin qorshahaas uma ogola hay'adda ka hortagta ama baadha baalid hubka ee loo yaqaan International Atomic Energy Agency IAEA waxaana ay leedahay arintaasi inaysan haba yaraatee wax galaan galaysan u ogolayn marar badan qaybo kamid ah qaybaha hubka nuclearka iyo xarumaha hubkeeda nuclearka aabihii ama ninkii aasaasay quwadda hubka nuclearka ee dalka Pakistan Abdulqaadir Khan ayaa sanadkii 2004 wuxuu qirtay inuu tiknoolajiyadan hadeerta lagu eedeynayo kale dalkooda inay meel kale ka soo iibsanayaan uu dusiyay dalal ay kamid tahay waqooyiga Korea Iran iyo Libya waxaana uu markii dambe markuu qirtay dawladda Pakistan ay cafis u fidisay ninkaasi khabiirka ah ee 84 jirka ayagoo markaasi sheegay in cafis loo fidiyay waxayna Pakistan ka dagaalantay oo ay diiday su'aalo la rabay inay weydiiyaan baarayaal ka socda hay'adda international loo yaqaano markaasi Atomic Energy iyo kuwa Mareykan ayadoo garafka ku dhufatay isla markaana ku mintay in haliyaygaas aan loo dhaafin. Khan ayaa ah nin khabiir ah oo science-ka dhinaca kiimikada iyo samaynta hubka atomiga ku taqasusay kaasoo la sheegay in uu siiyay qish dalalkaasi Iran iyo ay kamid yihiin waqooyiga Korea iyo dalka leeyahay markaas Libya haatana waxa la leeyahay arinta waxay u egtahay in labada dal tartankoodu uu sii badnaa doono maalmaha soo socda shirkadaha macashtoonka ee dhinaca nuclearka ka faa'iideysanaya ayaa iyaguna sii wadi doona bal halgankooda ay ku doonayaan inay hub badan halkaas ku gaarsiiyaan labada dal mid walba waxa lagu tiriyaa inuu haysto ku dhawaad 150 gumuc hubka nuclearka iyo gantaalaha ballistic missiles loo yaqaano ee xambaara ee lagu shubo hubkaasi waxaana labada dalba ay diideen ama inay saxiixaan qorshaha loo yaqaano qorshaha xakamaynta iyo la socodka hubka nuclearka ee dalalka hubkaasi ku hubaysan badankooda ay haystaan labada dal midkoodna ma saxiixin qorshahaasi gabi ahaantood halka nagala socotaan waa daawadashan qiimaha leh warfadhi media wararka ugu dambeeyay warbixinina cadalaansiyaada wali farkama qodna qaybtan waa qaybtii koobaad warar uga iyo wacala weyn ma idin haya daawadashan qiimaha leh haatan Saudi Arabia dalka Saudi Arabia waxa ay wararku ugu dambeeyay sheegayaan in ay jirto cabsi xooggan oo dalkaasi ku saabsan oo ah qaabkii loo maamulay dagaalkii dhinaca saliidda in uu keeni karayo khasaaro aad u weyn warbixino ay qorayaan wargeysada dhinaca maaliyadda ee adduunka uu kamid yahay Forbes majallada la yiraahdo iyo Asia Times waxay leeyihiin dalka Sacuudiga gabi ahaan waxa hoos u dhac aad u weyn yilcitaan oo ku yimid qiimaha iyo saamiga shirkadda Aramco ee tan ugu weyn ee dalkaasi haysa dhaqaalihiisa waxaana la sheegay in hoos u dhaca uu yahay mid ay ku dhumiyeen lacag gaaraysa Valerie ilaa iyo bilyan dollar oo ay sheegeen in qiyaasta guud ee hadeerta soo baxaysa aysan ahayn rasmi ah laakiin ay sheegeen inay u muuqato in hoos u lic xooggan uu imaanayo Sacuudigu maalintii ilaahay soo gadaba 1 bilyan oo dollar ayuu ka sameeyay jiray saliidda Valerie gaar ahaan shirkadda Aramco sida daraadeedna bariyihii ugu dambeeyay oo dhan shirkaddu uu hubanaysa waana isha ugu weyn ee dhaqaalaha ee dalka marka laga reebo Valerie xajka iyo meelaha ay kamid yihiin cimrada
haatan sida uu toddobaadkii hore qoray wargeyska Bloomberg ama warbaahinta Bloomberg dalka Mareykanku waxa ay sheegeen in Sacuudigu uu dhawaanahan oo dhan dawladda weeye xukuumaddu ay qaadanaysay deyn aad u weyn oo dhinaca dhaqaalaha wasiirka maaliyadda dalka Sacuudi Arabia Mohammed Al Jaydan ayaa dhawaan laga soo xigtay in dawladda ay qaadatay lacag gaaraysa 120 bilyan oo riyaal taasoo uu ku tilmaamay in ay tahay mid aad muhiim u ah wasiirka hore ee maaliyadda dalka Qatar ayaa wuxuu ku tilmaamay dalka Sacuudiga halka uu socdo inay tahay meel hog ah maadaama aysan lahayn qorshe ku aadanaa in ay la dagaalaan wasiirka hore waxaa la tabartay dalka Qatar ninka loo jeeday Abdallah Al Atiya oo TV-ga Al Jazeera la hadlayay ayaa saas sheegay wuxuu yiri dalka waxa uu muuqdaa mid xaaladdu ay sii xumaa karto maadaama marka la eego buu yiri qaabka uu u maamulay MBS qorshaha dhinaca dagaalka saliidda oo iskaga dhawaaqay isagoo aan dalku haysan dakhli labaad oo ku badbaado taasoo la sheegay inay ka dhalatay kadib markii ay telefoon cadho dhaliyay yeesheen isaga iyo madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin kaasoo telefoonka isku jareen kadib markii aflagaadooyin xoogan u huwiyay MBS gorsii horeysay oo ahayd bishii March halka nagala socotaan daawadayaal wararka oo cala dhinaca diblomaasiyadda qaybta labaad daawadayaal